إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا dhegeystayaasha sharafta leh iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan mar kale ku soo dhawaada maanta muxaadaradeennii saddexaad. muxaadarada maanta waxay ku saabsan tahay tarbiyatul awlaad, barbaarinta caruurta barbaarintoodii waxa weeyaan waa waajib saaran aabbayaasha inay ilmahooda barbaariyaan, ay ku barbaariyaan si wanaagsan oo waxa weeyaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray. ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisii markuu kaga hadlayey barbaarinta caruurta meelo fara badan oo qur'aanka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay. nebiyada ilaahay aad bay ihtimaam u siin jireen barbaarinta caruurta. waa tan ilaahay qur'aanku ku sheegay nebiyullaahi ibraahim khaliilullah oo ilaahay uu ka baryayo inuu siiyo ilmo saalix ah. nebi ibraahim wuxuu yidhi rabbi hablii min alsaalixiin, ilaahu waxaad isiidaa wiil saalax ah oo wiilasha suusuuban ka mid ah isiib buu yidhi nebi ibraahim. waa kan nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo wiilkiisii ismaaciil markii ay kacbada dhiseen ay yidhaahdeen rabbanaa wajcalnaa muslimayni lak wa min duriyatinaa ummatan muslimatan lak, ilaahu waxaad naga dhigtaa laba muslimiin naga dhig, caruurtayadu iyo faraceennana muslimiin ka dhig. sidaas bay dhihi jireen. nebiyullaahi zakariya calayhi salaam wuxuu dhihi jiray rabbi hablii duriyatan tayiba, ilaahu waxaad isiisaa caruur wanaagsan isi ayuu dhihi jiray. innaka samiicu dducaa. nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wassalaam markuu dhimanayey iyo nebiyullaahi ibraahim way la dardaarmeen ilmahoodii oo waxay dhaheen ilaahay wuxuu idin doortay diin ha dhimanina adinkoo muslimiin ahayn. nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wassalaam markii geerida ay ku timid waa kan ilmihiisii uu dardaariyey, uu yidhi dardaaran buu siiyey maa tacbuduuna min bacdi, maxaad caabudaysaan gadaashayda? markaasay dhaheen nacbudu ilaahak wa ilaaha aabaa'ika ibraahim, ilaahagaan caabudaynaa aabbayaashaadii ilaahay ay caabudi jireen oo nebi ibraahim ah iyo nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq, ilaahyadaas baan caabudaynaa, ilaahaasaan caabudaynaa oo halka ilaah ah. wa naxnu lahu muslimuun, annagana waxa weeyaan ilaahaasaan u hoggaansamaynaa. sidaasay ahaayeen dadkii ambiyadii wanaagsanaa, sidaas ayay u samayn jireen. sidaasay ahaayeen nebiyadii ilaahay iyo dadkii wanaagsanaa oo dhan. waa kan luqmaanulxakiim ninkii saalixa ahaa ilmihiisii uu waaninayo uu leeyahay wiilkiisii luqmaanulxakiim, ilaahay suuratu luqmaan noogu sheegay yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim, wiilkaygiiou ilaahay waxba hala wadaajin, shirkigu waa dulmi weyn. sidaasay dhihi jireen. marka ahamiyadda ay leedahay barbaarinta carruurta halkaasaad ka garanaysaa. waa ambiyadii ilmahoodii aad uga fekeri jiray. ilaahay subxaana wa tacaala nebigiisii moxamed sal alla alay slam wuxuu noo sheegay ilmaha markay dhalanayaan in lagu dhalayo diinta islaamka ee suuban. marka labadoodii waalid ayaa sabab u noqonaya inay dad wanaagsan noqdaan ama dad xun inay noqdaan. nebigu wuxuu yidhi sal alla alay slam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra, mid kastoo la dhalayo fidradaa lagu dhalaa diinta. laakiin labadiisii waalid baa yahuud ka dhigaya ama nasraani ka dhigaya ama majuusi ka dhigaya. marka aabbayaasha waxaa waajib ku ah iyo hooyooyinka iyo cid alle ciddii mas-uulka ah carruurta in ay ku dadaalaan barbaarintoodii. ilmaha waxa weeyaan inay wanaagsanaadaan oo ilmo fiican ay noqdaan iyo barbaarintoodiiba waxa weeyaan maraaxil fara badan oo loo maro ayaa jirta. marka ugu horreysa waxa weeyaan ilmaha ay dhalanayaan waa in waxa weeyaan intaan ilmaha dhalanba waa in guurka la hagaajiyaa. ikhtiyaaru zawja asaalixa, qofku waa inuu guursadaa haweeney wanaagsan, waa inuu guursadaa. waxyaabaha waxa weeyaan ilmaha wanaagsan keenayay ka mid tahay. labo waxa weeyaan guurkaa markuu dhaco ka bacdi jimaaca markuu uu dhacayo in adkaarta la akhriyo. bismi illaah allahuma janibna ashaytaan
وجنب الشيطان ما رزقتنا هدي أور صابح إلهي المؤسينا وهو يدي أور أيالتنا وحال دونيا إن وحويان هو يدي وحويان إن إلهي لو بريو ولي يراهدو دعادي أو سو أرورتي إن لي يراهدو لين